nabigeena calayhi salaatu wasalaam dumarka markuu ka hadlayay aad iyo aad ayuu ugu dardaarmay oo wuxuu yiri alaa fastawsuu binnisaa'i khayra war haweenka khayr u dardaarma xataa xaaladihii ugu dambeeyay noloshiisa nabiga haweenka ayuu ka dardaarmay haweenka khayr u dardaarma oo wax wanaagsan u sameeya oo dhaqan wanaagsan kula dhaqma sidaa darteed waxaa laga rabaa ninku inuu xaaskiisa niyadeedii ilaaliyo taqallubaadka kale isbabeddelka ku dhacay uu ka ilaaliyo hooyadii iyadoo uur kale la furayo iyadoo uur kale lala guursanayo iyadoo uur kale laga dhaqaaqayo hadallada adag lagu leeyahay sida xun loo galayo guryahoodii lagu soo ceerinayo maaragta caruurtoodii laga qaadanayo qaylada iyo buuqa iyo dagaalka ay marayaan ficlan uma qalmaan ee waxay u qalmaan inay helaan qof fahmo marka koowaad xaaladda ay marayaan marka labaadna siiya taageero nafsi ahaaneed uguna dulqaata xaaladaas ay ku sugan yihiin haweenkana waxaa looga baahan yahay ayaga naftirkoodu inay bartaan nafsiyadooda iyo isbedelada jirkooda ku dhaca oo nafsadooda iyo caafimaadkooda ay ku dadaalaan oo ay baaraan oo hadday dhibaato iyo murug soo wajahdana aysan la qarsanin ay xal iyo daawo u raadiyaan marka laga hadlayo haweenka iyo in loo dadaalo dada isdhihi doona haweenka dhinacoodii bay la jirtaa laakiin marka haweenku ay wanaagsanaadaan ogow adigana waa wanaagsanaanaysaa laakiin hadday kugu xumaadaan ogow adigana nolosha cariiri kaa geli doonta oo caruurtaadii baa cariiri geli doona dhibkana haysta ummadeena Soomaaliyeed meesha ugu badan ee nooga yimid waa hooyo la dayacay iyo caruur la dayacay iyo jahli iyo aqoon darro nagu dhacday taasoo noo keentay xataa in khuraafaadkii aan iska aamino oo hooyooyinkeen ay noqdaan dadka ugu badan ee meelaha khuraafaadka lagu sheego u carara ee u dhaqaaqa aad iyo aad ay mahadsantihiin aadna waa idin salaamayaa mowduuceena halkaas ayuu noogu egyahay salaamu calaykum waraxmatullaahi